bulshada Soomaaliyeed way burburtay kal jarali bay burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kasta ay soo qaadatay way burburtay dadkii dibadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminar yar iyo capacity building baa laynoo wada soo capacity-gan uma dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa laleeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa akademiga capacity building loo samaynaya waxna laynooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dawladda hooska waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa wasaaradaheennoo dhammi NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeennoo dhan maca tujaarteenna maca waxeennoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hoggaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaaniin awka dee xadhigga marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa uun hadduu madaxa yara gijeena faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan